agaasime Sharmaarke agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska agaasimaha radio Muqdisho agaasimaha social media agaasimaha howlaha guud howlwadeennada warbaahinta qaranka ee halkan fadhida dhammaantiin galab wanaagsan waa isla inagu bas casuunay waxaanu isu casuunay waxaan sida hadda dad kale banaanka ka keentaan baashu way idinka yara qaab daraanaysa tawayne April ayaan sabta weyn u dhiganay hadda intani waa inagii uu is casuunay sababtuna waxay tahay in inteenan isu xogogaalka aan inagu kala war qaadano sidan oo kale u sheekaysano si oobina April si fiican aan ugu diyaar garowno inta kadib farxad weyn bay tahay runtii abaalmarin macnaheedu waxa daba taala shaqo la qabtay oo qof shaqeeyay baa taala macnaheedu ma aha inaan dadka kala shaqeyn laakiin macnaheedu waxa weeye in la dadaal fiican la sameeyay la xuso dadkii ugu dadaalka badnaa waxaan markii aan soo galo production roomka iyo area-da waxaan u soo galaa nasteexo taagan markaan nasteexo ma aqoon laakiin waxaan ku bartay shaqada marka waxaan marka fikiray wali ma arag nasteexo fadhidee horta nasteexo mar walba iyadu may taagan tahay waa iga dhab wali nasteexo fadhida ma arag inta soo jeerna waan arkay daa macnaheedu waxa weeye waa qof shaqo u diyaara marka waxaan dareemayaa abaalmarinta la bixiyay inay mudan yihiin sidoo kale Cabdisalaam markastoo kamarad loo baahdo inkastoo dhammaan la wada shaqeeyo sidaas aan u arkay ramla yariyadu waxa ku dayda 10 milyan oo caruur oo Soomaaliyeed ayaa ku dayda oo ay u tahay horyaal waanan salaamaya waanan ku amaanaya abaalmarinta barnaamijyada TV-geena qurxiya tarsan baa kow ka ah barnaamijyadiisa kow ka yahay sharing kasta loo share gareeyo sida loo hadal hayo iyo sida wax uga bedelo dhacdooyinka waxay tusaale u tahay inaynu ku socono wadada saxda inaynu ku socono oo hogaaminana waxa sabab u ah wariyaasheena oo tarsan kow ka yahay waan hambalyeynaya isaga haddii baasha heesta la yiraahdo waxa dadku yaqaaniin fanaanka laakiin fanaanka waxa 100 jeer ka shaqada badan dadka kale waxa ka shaqo badan muallifka soo fikiraya erayadan dadku rabaan ee jeclaan doonaan ee isu diri doonaan ee ku mahmaahi doonaan abwaanka ka timi abwaanka waxa ka sii shaqo badan qofka laxanka saaraya ee dhadhanka u yeelaya erayo kaligoodii meel lama tagaan lamana dhageysto laakiin haddii markay laxanka lagu daro laxanku hadaanu muusig fiican helin isna ma shaqeeyo markaas buu waxa yimaada fanaanka haddii aan sawir fiican la soo qaadin TV fiican la heli maayo haddii sawirka aan wariye nafur la oo dadaalaya tabinayna macna ma samaynayo haddii aynaan stuudiyaal fiican iyo customers haysanna haddaad wariye fiican haysato stuudiyo fiican haysato oo ana TV fiican haysan waxaad noqonaysaa qof hees ka soo qaadaya xarir yaale marka ma waliga yaani luuq baad ka soo heesaysa marka TV-geeniyo weyn wariyaasheeniyo fiican production-keeniyo fiican kameramaanadeeniyo fiican madaxdii oo hogaaminayso fiican intaasi markay jiibta iyo jaanta isla helaan waa markay soo baxayaan barnaamijyadan dadku daawanayaan ee xiiseynaya dhammaantiin intaas aad tihiin oo ka wada qayb qaadateen waan idinku hambalyeynaya maxaynu nahay waxaynu nahay howlwadeennadii iyo askartii qaranka sidaan horeba u sheegay warbaahintan qarankaynu ka shaqaynayno ama social media ha noqoto ama radio Muqdisho ha noqoto ama Soona ha noqoto ama TV-ga qaranka ha noqoto warbaahintan aynu ka shaqaynayno yaale waxa suuqa inagula jira wiilal iyo gabdho cameraman ah wariyayaal soo saarayaal ah agaasimayaal ah oo ka shaqeeya
warbaahin qof leeyahay innaguna waxaynu ka shaqaynaa warbaahin aynu leenahay farqiga ugu weyn ee inoo dhaxeeya warbaahinta gaarka iyo warbaahinta qaranku waa taa ma jirto warbaahin gaar loo leeyahay oo 3 generation oo isdhalay ay ka shaqeeyaan ama ay ka soo shaqeeyaan abtow aka muuse wiilkiisina quraanku inoo akhriyay kuwa awowga u yahayna meel dhow ku soo biiray meel kale oo aad ka soo helaysaa oo dukaan leeyahay waxa uu ka oranaya ma dukaankayga isku dhaldhashay orado shaqada ku ka oranay haga dukaankayga isku dhashay laakiin halkani inaga ale sababta 3 generation oo isdhalay ay isugu soo gaarayaan warbaahinta qaranka because inaga ale aniga idinku odayaho bari baa lagu oranayaa shaqadii qof kale loo diray laga maarmaya ama meel kale aan uga gudbaya ka bacdi qof kale imanaya laakiin wariyuhu uu joogaya barnaamij soo saaruhu uu joogaya cameramanku uu joogaya and everyone waa shaqo dad macnaheedu waxa weeye inaad markaad wax samaynaysaan ogaataan waxa ka shaqaynaysaan inay yihiin dhaxalkiinii waxa idinku leeyihiin wax aan yaani qofna korkiisa biyo kama dhawro qofna korkiisa biyo kama xistiyo qofna naftiisa wax kama hagrado waxaan rabnaa inay warbaahinteenu noqoto nafteeni iyo gurigeeni iyo dharkeeni iyo jirkeeni waxaan rabnaa markaan shaqaynayno inaan uga shaqayno sidii meherad aynu inagu leenahay sidii TV inagu aynu leenahay sidii idaacad aynu inagu leenahay because inaga ale hatta hadaanad madax ka ahayn shaqaalaad ka tahay shaqaale joogtaad ka tahay hadday xumaato iyo wax ka halaabaya waa shaqaalaha waxaan rabaa inaan ku celceliyo in aynu sense of ownership waxa la yiraahdo lahaansho qaran nagu qarankaynu u shaqaynaa qarankana warbaahintiisii waa mother of all media وهويدي ميديا هدالكو دhan iyo saxaafada inaynu xil weyn isa saaro sidii aynu u noqon lahayn dad haddaba waynu ka horeynaaye in badan ka sii horeeya waxaan rabnaa inaan ku loolano ku beeratano ku tartanno wax soo saarka wax qabadka iyo shaqada si dukaankeennu TV-geennu meheradeennu wadnaheenu waa wadnaheennii uu noqdo wadnaha ugu fiican ee ordi kara inta ugu badan mar saddexaad iyo mar afraad guul baan idin rajaynayaa shakiga gama jiro inaynu hayno wada fiican laakiin waxa faraska usha loogu dhuftaa orodka ka sii badiyo waxaan rabaa xilkasnimo iyo xilgudasho iyo dadaal laaban oo saddex laaban inta aan abaalmarinta helina waxaan rajaynayaa inay April heli doonto laakiin saddexda bilood ayaan shaqo badan inoo taala maqribna waa la adimay guul iyo horumar iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo tusaale u noqota wasaaradaha kale ee dalka sidii shalayba markii ra'iisul wasaaruhu yimi u yaab ama ka ugu noqday shaqada aynu hayno ee markii dambe u lahaa waxa haysa shaqadii dalka ugu muhiimsanayd ee dadaala waa inaynu inaguna sida aqoonsanahay waa dadaalina guulaysta